kulanti wacan u wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka Bisla TV. qodobada warkaad ku daawan doontaana waxaa ugu waaweyn dowlad goboleedka Puntland ayaa mar kale waxay dil ku fuliyeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo dhawaan ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada ammaanka ee maamulkaasi. Dowladda Mareykankuna waxay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ugu baaqday inuu waqooyiga dalkaasi ka saaro ciidamada Eritrea iyo kuwa Axmaarada si loo xasiliyo nabad ka hirgasho gobolka Tigray. maxkamadda sare ee Somaliland waxay go'aan rasmi ah ka soo saartay natiijadii doorashadii golaha wakiilada Somaliland kadib muddo ay waday dhageysiga dacwadaha ay soo gudbiyeen xildhibaano aan iyagu ku qancin natiijada ay soo saareen guddiga doorashooyinka Somaliland. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan warkeena, balse iminkii aadna waxaad isku diyaarisaan faahfaahinta qodobadaas iyo kuwa kale. maxkamadda ciidamada Puntland ayaa maanta dil toogasho ah ku xukuntay 8 dhalinyaro oo la sheegay inay ahaayeen shabakad ka tirsan ururka Al-Shabaab, kuwaasi oo dilal ka geystay gudaha magaalooyinka Gaalkacyo ee maamulka Galmudug. maxkamadda ayaa muddo 30 cisho oo racfaan ah siisay xukumanayaasha si ay u qabsadaan qareenowdooda oo ka difaaca dambiyada ay ku mutaysteen xukunka dilka. maxkamadda ciidamada Puntland ayaa soo bandhigtay cadeymo maqal iyo muuqaal oo ay eedeysanayaashu ku qiranayeen inay ka dambeeyeen dilal madax jabis ah iyo qaraxyo intooda badan ka dhacay Gaalkacyo, gaar ahaan dhinaca koonfureed ee maamulka Galmudug. oo markii labaad oo ay Puntland xukun dil ah ku rido xubno ka tirsan Al-Shabaab muddo toddobaadyo gudihiis ah. 18 ka mid ah xukumanayaashaas ayaa lagu fuliyay xukun dil ah toddobaadyadii hore. xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka oo maanta la hadlay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa carabka ku adkeeyay baahida loo qabo xabad joojin degdeg ah oo ka dhaqan gasha waqooyiga Itoobiya. xogayaha ayaa ku booriyay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed inuu u hoggaansamo go'aamadii ka soo baxay shirkii golaha amniga ee qaramada midoobay ee dhacay 2 bishii July. xogayaha ayaa ku booriyay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed inuu u hoggaansamo go'aamadii ka soo baxay shirkii golaha amniga ee qaramada midoobay ee dhacay gudaha bishan July. go'aamadaas waxaa ka mid ah in gebi ahaanba ciidamadii Eritrea iyo Axmaarada laga saaro gobolka Tigray, inaan laga hor istaagin helitaanka gargaarka bini'aadanimada dadka u baahan iyo dejinta hanaan lagula xisaabtamo kuwa mas'uulka ka ah xadgudubyada xuquuqda aadanaha. intaas waxaa sii dheer, xogayo wuxuu carabka ku adkeeyay sida degdega ah ee loo qabanayo wadahadal siyaasadeed oo loo dhan yahay si loo bilaabo hawsha adag ee loo marayo samaynta xal waara oo loogu talagalay kala qaybsanaanta siyaasadda ee dalka. gobolka waqooyiga Itoobiya ee colaaduhu ragaadiyeen ee Tigray ayaa dhawaan magaalo madaxdiisa Mekelle waxaa si buuxda ula wareegay jabhadda TPLF kadib markii ciidamada Itoobiya halkaasi iskaga baxeen. maxkamadda sare ee Somaliland ayaa si rasmi ah u ansixisay natiijada hordhac ahayd ee doorashada golaha wakiilada. maxkamadda ayaa waafaqday natiijada hordhac ahayd ay soo saareen guddida doorashooyinku isla markaana sideedii ku ansixiyay. haddaba qoraal ka soo baxay maxkamadda sare ee Somaliland ayaa u dhignaa sida tani: ujeedo qaraar ansixinta natiijada doorashada golaha wakiilada Somaliland. maxkamadda sare ee dastuuriga markay aragtay warqadda sumadeedu tahay KDQ/0120 ku astaysan sanadka 2021 kuna taariikhaysan 9 bisha 6 2021 kana soo baxday komishanka doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. ujeedadeeduna ahayd soo gudbin natiijadii hordhaca ee doorashada golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland sanadka 2021 markay daristay hubisayna qoraaladii la xiriiray natiijada doorashada golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland ee sanadka 2021 xisaab ahaan iyo sharci ahaanba ee uu maxkamadda sare ee dastuuriga uu soo gudbiyay komishanka doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland markay ka garnaqday dhammaan dacwadihii la xiriiray natiijada hordhaca ahayd ee doorashada golaha wakiilada. go'aana ka gaadhay markay aragtay qodobada 40, 42, 97, 98, 101 ee dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland, markay aragtay qodobka 152 ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha ee xeer lambar 91 sanadka 2020, markay aragtay dhammaan asbaabaha sare ku xusan waxay soo saartay qaraarkan soo socda: waxay ansixisay natiijada hordhaca ahayd ee doorashada golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland ee sanadka 2021
ee komishanka doorashooyinka qaranku soo gudbiyay maxkamadda sare ee dastuuriga Jamhuuriyadda Somaliland taariikhdu markay ahayd 9 bishii 6 2021 liiska mudanayaasha ku guuleystay doorashada golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland iyo keedkoodiiba waxa uu ku lifaaqan yahay qaraarkan. qaraarkani waxa uu soo baxay maanta ay taariikhdu tahay 7 bisha 7 sanadka 2021. garsoorayaasha maxkamadda sare ee dastuuriga Jamhuuriyadda Somaliland ee ka karnaqay xeer dacwadeedkan iyo waliba soo saaridda natiijada rasmiga ee xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland ayaa kala ah: 1 Aadan Xaaji Cali Axmed, gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland; 2 Maxamed Cumar Geelle, xubin; Cabdiqaadir Axmed Maxamuud, xubin; Cabdiraxmaan Jaamac Hayaan, xubin; Maxamed Faarax Siciid, xubin; Axmed Deeriye Qaalib, xubin; Cali Shucayb Sheekh Ibraahim Nuur, xubin; Cabdiraxmaan Xuseen Caynaan, xubin; Yaxya Cali Idris, xubin; Cabdilaahi Cabdi Aadan, xubin; Cabdiraxmaan Xasan Nuur, xubin. wasiirka warfaafinta Galmudug Axmed Shire ayaa beeniyay in kooxda Al-Shabaab ay dib ula wareegtay degmada Bacadweyne ee gobolka Mudug, halkaasoo maalmo ka hor ciidamadu gudaha u galeen. wasiirka warfaafinta Galmudug oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamadu ay ku sugan yihiin magaalada banaankeeda, isla markaana ujeedada laga leeyahay ay tahay inaan shacabka la argagax gelin oo magaaladu aysan noqon goob ciidan. wasiir Falagle waxa uu sheegay in ciidamadu u diideen in magaalada gudaha u galaan iyagoo hubsita. wuxuuna sheegay in kaliya loo ogol yahay mas'uuliyiinta dowladda iyo saraakiisha ciidamada. wuxuu sheegay Galmudug inay ka go'an tahay magaalo kasta iyo deegaan kasta oo la xoreeyo loo sameyn doono maamul, isla markaana aysan hadda kadib dhici doonin in la dayaco magaalo la xoreeyay. Al-Shabaab ayaa baahisay maalintii shalay inay dib ula wareegeen magaalada Bacadweyne iyo deegaano kale, iyagoo sheegay in 20 askari ku dileen dagaaladii ka dhacay Bacadweyne ee u dhaxeeyay iyaga iyo ciidamada maamulka Galmudug oo garab ka helaya kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. wafdi ballaaran uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa goor dhow gaadhay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. wafdiga ra'iisul wasaaraha xukuumadda ayaa waxa garoonka magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulkiisa. ujeedka safarka ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay sidii dib u heshiisiin loogu sameyn lahaa khilaafka dabada dheeraada ee ka taagan gobolka Gedo iyo waliba sidii loo dardargelin lahaa arrimaha doorashooyinka dalka. ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale wararka hordhaca ah ee aanu helayno waxay sheegayaan in maalinta Jimcaha uu tagi doono magaalada Garbahaaray ee xarunta gobolka Gedo si uu ugu kuurgalo khilaafka halkaasi ka jira. ra'iisul wasaaraha ayaa inta uu joogo magaalada Kismaayo waxaa lagu wadaa inuu dhagax dhigi doono mashaariic dhowr ah oo ay dowladda Soomaaliya ka fulinayso magaalada Kismaayo. madaxweynihii dalka Haiti Jovenel Moise ayaa la toogtay xilli uu ku sugnaa gurigiisa oo ku yaala caasimadda dalkaasi, sida laga soo xogtay kusimaha ra'iisul wasaaraha. wuxuu uu sheegay in rag hubeysan oo aan haybtooda la aqoon ay weerar ku soo qaadeen guriga madaxweynaha abaarakowdii habeenimo waqtiga maxalliga ee dalkaasi. waxaa sidoo kale dhaawac loo geystay marwada koobaad ee Haiti Martine Moise. kusimaha ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in la qaaday tallaabo kaste oo lagu badbaadinayo dalka, wuxuuna haatan la wareegay awoodda dalkan ku yaala Caribbean-ka, isaga oo shacabka ugu baaqay in xasilooni ay muujiyaan. waxa uu ku tilmaamay dilka loo geystay madaxweynaha mid guraacan oo ka baxsan bini'aadanimada, isla markaana ah weerar fulaynimo. Jovenel Moise ayaa 53 jir ahaa, wuxuuna awoodda Haiti la wareegay bishii Febraayo ee sanadkii 2017 kadib markii uu xilka ka degay ninkii isaga ka horeeyay ee Michel Martel. intii uu xilka hayay wuxuu u wajahay eedeymo ku aadan musuqmaasuq, waxaana dalka ka dhacay mowjado dibadbaxyo ah oo looga soo horjeeday xukuumaddiisa. dibadbaxyadaas oo lagu codsanayay inuu iscasilo.
mucaaradka Haiti waxay ku andacoodeen in muddo xileedka madaxweynaha la dilay oo ku ekaa 7 bisha Febraayo ee sanadkan. Waxa uu madaxweynaha la dilay ku dooday in sanad ay uga dhiman tahay muddo xileedkiisa. Bishii Febraayo markii mucaaradka ay ku cadaadiyeen inuu iscasilo, madaxweynaha la dilay waxa uu xilligaasi sheegay in la fashiliyay isku day lagu doonayay in dowladiisa lagu afgambiyo. Xasilooni darrada joogtada ah, hogaamiyeyaal kaligood talis ah iyo dhibaatooyin ka dhasha musiibooyinka dabiiciga ah ayaa waxay Haiti u horseedeen inuu noqdo dalka ugu saboolsan qaaradda Ameerika. waa tahay daawadayaal, qodobkaasi wuxuu gun gabagabaya gunaanada u ahaa warka Bisla TV. ood xilligan si toosa ula socoteen. waxaa warkayda akhrinaya anigo Cabdirasaaq Cabdisalaam. intaynu ku kulmayno warka xiga waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.